waxaa laga hayaa gaadiid waxaa loo geystay khasaare weyn oo dhimasho iyo dhaawacba leh inaan galabta idinkala socodsiino wixii ka dhacay deegaanka SSC gaar ahaan gobolka Sool iyo degmada Laascaanood iyo tuulooyinkeeda saaka aroornimadii hore markay 6 iyo qadar daqiiqada ahayd jamhadda SNM ee cadawga ah waxay saaka weerar ku qaadeen tuulada la yiraahdo Dhabansaar oo ay u qaxeen dadkii ka qaxay maatada ahaa ee ka guuray Laascaanood waxay kaga daba tageen dadka maatada ah iyo deegaankii u guuray sanadka ee reer miyiga ahaa ee magaalada deganaa bay halka kaga daba tageen weerarkaas ay qaadeen saaka oo ujeedadoodu ahayd inay wadada ka baxaan kulanti wacan saaxiibadeeda YouTube-ka ee halkan igu weheliya muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo qodobo dhowr ah qodobka koobaad ee muuqaalkan uga hadlayo waxa ay tahay afayeenkii beesha dhulbahante ama afayeenkii SSC oo si kulul markaas oo caro leh uga hadlay dagaalkii maanta lagu baaba'shay kooxdii argagixisada ahayd ee SNM dagaal maanta isaaq lagu baaba'shay ayuu afayeenkii SSC kaga hadlay markaasi xaaladdu sida ay tahana ka warbaxshay isaga oo waliba khudbad cajiib ah markaasi ka jeediyay gudaha magaalada Laascaanood afayeenka qodobada uu ka hadlay iyo muuqaalkiisa ayaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa sidoo kale barnaamijkan waxaynu uga hadli doonaa oo aan diiradda ku saari doonaa isaaqii oo magaalada markaasi burcad duleedkeeda wali ka wada in ay markaasi isxasuuqaan dil hadda way ka soo tagtay arintu isaaqi haatan waxay marayaan in guryahoodii iyo caruurtii iyo xaasaskoodii inay iska laayaan ilaaha isku soo jeediyay waa alxamdulillah aan dhaheena waa wax u baahan inaan soo dhaweeyno sababtoo ah dad masaakiina dad aan waxbana galabsan ay isaaq waxay ku dulminayeen magaalada Laascaanood dad aan waxbana galabsan waxay ku dulminayaan Ceerigaabo dad aan waxbana galabsan waxay ku dulminayaan Boorama marka Boorama iyo Laascaanood iyo magaalada la dhaho Ceerigaabo kama xuma burco kama fiicno laakiin isaaqi maanta inuu ilaahay istusay waa wax ay bulshada Soomaaliyeed badankooda ay soo dhaweeyeen labadaas qodob ayaan barnaamijkan uga hadli doonaa oo faahfaahsan inta aan muuqaalkan marka guda galin waxaan ka codsanayaa YouTube-kan hadii aad ku cusub tahay fadlan YouTube-kan subscribe saar waa waajib YouTube-kan subscribe saaro gambaleelka furo si aad u hesho warbixinada aan daqiiqad walba saacad waliba aan halkan ku baahinayo saaro YouTube-kan gambaleelka saaro subscribe taabo muuqaalkan like saar maxay ka dhibaysaa waxba ka dhibi mayso like-ta muuqaalkan u taabo YouTube-kan subscribe saaro adiga oo muuqaalkan si share gareynayo waa hadii aad awoodid qaybta hoose ee comment-igana bal aragtida aad ka qabto dagaalkii cuslaa ee maanta ka dhacay magaalada Laascaanood iyo SSC hubkan iyo saanadan iyo maxaabiistan ay kooxda argagixisada SNM ay gacanta uga dhigtay ay soo bandhigtay bal sidaad u aragto qaybta hoose ee comment-iga igula wadaag sidoo kale aragtidaada waxaad ka dhiiban kartaa in isaaqi ilaahay uu istusay maanta waa kaasa burco duleedkeeda isaaqi waa isku laayeen mar kale ayuu dagaal culus ka dhacay waxay haatan marayaan isaaqi inay iska gubaan guryahoodii isaaq hadduu asaga dhexdiisa is cunaa dagaal balaayo wuxuu yaqaanaa cidiye ka dagaalan inuu reeraha iyo caruurta iyo guryaha inuu ku noqdo waa kaasa maanta waa u jeedi kartaa guryihii isaaq ayaga isgubayo nimankii habar yoonis ahaa iyo habar jeclo jaka wajkaarin iska dhigeen muuqaalkan ayaan rabaa inaan xog badan ka dabageeyo marka soo dhawaada mar kale saaxiibayaal sidaad la socoteen warbixinadeeda horena ay kula wadaagay magaalada Laascaanood saaka aroortii waxa ka qarxay dagaal aad iyo aad u culus dagaal aan waxba la isku reeban dagaal qof walba xaniyaha uu lahay banaanka u soo dhigtay dagaalkan waxa uu dhaxeeyay ciidamada SSC ee xaq u dirirka ee mujaahidiinta ah ee shahiidaya iyo kooxda argagixisada SNM ee duulaanka ku ah deegaanada SSC ninkii Muuse Careysan ahaa ninkii Muuse Juudaan ahaa waxa ku dhacay markaasi jab oo ka sheekeyn doono maalmaha soo socda waxay ka soo dhaqaaqeen gooja cad nimanka lagu magacaabo SNM ama Somaliland ma jirto iga raal noqdo nimanka la dhaho isaaq waxay ka soo dhaqaaqeen gooja cad iyaga oo weerar ku soo qaada markaasi deegaanka markaasi Dhabansaar oo aan sidaas uga fogeyn magaalada Laascaanood deegaanka ay kooxdan argagixisada ay soo weerartay waa isweydiinaysaa yaa daga isleeda ciidan gaarana ma joogo wax gaarana ma joogo deegaanka Dhabansaar waxa u qaxay markaasi dadkii Somaliland ay ka barakacday gudaha magaalada Laascaanood
hooyooyin caruur waayeelo iyo dad macnaha birimageeda ah deegaankaas ku noolaa oo ku sugnaa ciidanka isaaq halkaas intay tageen waxay isku dayeen in dadkii shacabka ahayo birimageedada ahayo deegaankaas jooga inay abiyuusaan balse ciidamada xaq u dirirka ah ayaa duleedka laascaanood ka kicitamay ilaa dhowr cabdibilaa ay ku tageen waxaana markaasi barida looga dhacay ciidankii argagixisada SNM ee markaasi deegaanka dhabansaar markaasi shacabkii joogay ku handadayay soona aaday xaaladda markaas waxay noqotay jiq meel halis ah oo aan laga soo celi karin ay noqotay ciidamadii Soomaaliland waxay bilaabeen inay iska celiyaan ciidamada SC balse guusha Ilaahay wuxuu caaw u hooyay oo caaw guul ku seexanayo dhabanadooda dhanka markaas dhulka la dhigayo iyagoo guul haysto nimanka lagu magacaabo dhulbahanta ama khaatuma maamulka la yiraahdo waxa dagaalkii dhacay ee 8 saacadood socday kadib warbaahinta la hadlay afayeenka guud ee markaas SSC isaga oo markaas si qoto dheer uga hadlay dagaalka qaabka u dhacay iyo ciidamada argagixisada Soomaaliland qaabkii markaas dabada looga dhacay hadaladiisii wax yar la daawo waxa laga hayaa gaadiid waxa loo geystay khasaare weyn oo dhimasho iyo dhaawacba leh aan galabta idin kala socodsiino wixii ka dhacay deegaanka SSC gaar ahaan gobolka Sool iyo degmada Laascaanood iyo tuulooyinkeeda saaka aroornimadii hore markay 6 iyo qadar daqiiqada ahayd jamhadda SNM ee cadawga ah waxay saaka weerar ku qaadeen tuulada la yiraahdo Dhabansaar oo ay u qaxeen dadkii ka qaxay maatada ahaa ee ka guuray Laascaanood waxay kaga daba tageen dadka maatada ah iyo deegaankii u guuray sanadka ee reer miyiga ahaa ee magaalada deganaa bay halka kaga daba tageen weerarkaas ay qaadeen saaka oo ujeedadoodu ahayd inay wadada ka baxaan dhanka kale magaalada Burco waxa ka socda hub urursigii ugu weynaa abid waxaana Burco duleedkeeda isku hayo laba qabiil maahan waa qabiilkii isaaq ahayo ayuu Ilaahay istusay deegaan aan sidaas Burco uga dhaweyn meeshaan iga dambeedaad arki kartid waa guryo gubanaya waa guryo iyo caruur iyo markaasi hooyooyin ku gubanaya halkan iga dambeeyo waxa taadigan geysanaya waa beesha habaryoonis niman ka tirsan waxa ay dhibaateeyeen oo ay markaas haatan ay dagaal faraha looga gubto markaas uu ka dhaxeeya iyaga iyo niman kale oo isku jufo ay yihiin oo dhul daaqsimeed isku hayo isaaqi waa kaasa isaaqi Ilaaha istusay warbixintii shalay aan la wadaag waxa idin sheegay deegaankan aan Burco sidaas uga fogeen in dagaal aad u culus oo ka socdo maanta ayuu mar kale ka qarxay saacado ka hor halkan waa la isku fara saaray saacado ka hor halkan waxa ka dhacay dagaal aad u culus oo dhagaha la qabsaday waxaana ilaa iyo haatan dhimashada la soo sheegay ilaa iyo 3 ruux inay labada dhinac ee maleeshiyaadka halkan ka dagaalamaya markaasi ay labada dhinac markaasi ay ka kala dhinteen dhaawacan ilaa iyo 5 ruux ayaa la sheegay magaalada Burco ayaa la keenay isbitaaladkooda ayaa lagu daaweynaya dhalinyaradii isaaq ee Burco ku sugnaad iyo wax garadkii laba dhinac ay u kala baxeen laba quwada ishaydo laba jufo oo markaasi habaryoonis ka tirsan ayaa halkan isku baabi'inayso isaaqi kale lama joogaya garxajis xitaa lama joogo habaryoonis laba jufo ka tirsan halkan isku baabi'inayso oo laba maalin 3 maalin baraago iyo wax saas isku haysato muuse arrinkan kama uusan hadlin muuse Soomaaliland meel wuxuu geeyay aan 30 sano hadda kadib qof caafimaad qaba xitaa di jaanis loo siiyo uusan ka soo celi karin geediga muuse meesha uu ku furay waa meel aan laga kici karin qabiilaadkii uu isku diray muuse soo u socdana isaaq waa kaasa maanta is haysto oo Burco duleedkeeda isku haysto marka wuxuu ka tagay isaaq uu dagaal galshay dhul bahanta waa kaasa waa aragtaa maanta dagaalkii ka dhacay Laascaanood ayaa markaas kugu filan markaas sabab waad aragtaa ceeri gaabo waxa ka soconay nimankii harti iyo waliba nimankii warsangani waa kuwaas ceeri gaabo ka banaan baxayo oo calankii buluuga ka taagay oo midnimadii raadinayo boorama magaaladii aqoonta Soomaaliyeed magaaladii ku taalay jaamacadda ugu fiicneed deegaanada Soomaaliland jaamacadda Amuud waa kaasa nimankii gudubursi samaroon kaceen waa kuwaas wadooyinkii gubayo oo jidadkii xiranayo oo nidaamka Muuse marrabna dhahayo waa kaasa Soomaaliland ma doonayna dhahayo maalin walba Muuse laba la kulmaya maruu dad lunsho iyo maruu ciidankiisa uu ku baaba'asho furmaha hore fiir Laascaanood meeqa looga dilay
afayeenka waa dhageysatay meydadkoodii Somaliland qaadal ay yihiin oo dhaha marka fiiri Somaliland wada waxay cagta saartay madow black listigaana lagu daraa Somaliland bilooyinka soo socda wada aan u fiicnayn muuse oo Somaliland oo qorta u galshay saaxiibayaal waa sidaas dagaalka laascaanood haatan waa la is hor fadhiyaa ciidan laascaanood joogay oo SSC ka tirsanay Cabdi Madoobe watay ayaa waxa la sheegay inay saacadii la soo dhaafay intay dhaqdhaqaaq sameeyeen ay gaareen markaasi albaabka hore laga galay xarunta Gooja Cadde Somaliland waxay qorsheynaysaa in 18 ay ku dhigto dhaqaale ma haydo moogto warbixinadeeda hore waa kugu sheegay in Somaliland without money macnaha Somaliland ka jirto wax dhaqaalaha iyo fankii loogu talagalay in 18 May lagu dhigo Gooja Cadde lagu baabaashay fankii loogu talagalay in 18 May lagu dabaaldego waa taas xirada Gooja Cadde ku baabaay isaaq marka wuxuu hayay lama arko nimankii SSC waa guuleysateen halkaas ka sii wada shacabka Soomaaliyeed idin garab taagan dawladda idin garab taagan ilaahay idin garab taagan wixii warar ka soo kordha halkaan aad kala socon doontaa dagaalada laascaanood ka soconaya iyo ceeri gaabe iyo boorame iyo isaaq burco isku kor haysto halkaan aad kala socon doontaa marka waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saar ilaa dhamaadka daad u helisay subscribe saaro YouTube kan waa wax adigu ku anfacayo gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto saaxiibada wararkeena halkan ka helo wararkanagana rukunto qaybta hoose commentiga aragtidaada inoo reeb waa Cabdiqaadir Siisi oo idin leh muuqaalkan muuqaalka xiga ayaa inoo balana